inta ila tacaali karaan waa ila tacaaleen waxay ii sameeyeen cudurkii markuu ugu dhacay waxay lala cararay isbitaalada lala cararay waxay soo siinayeen mid walbo markii la geeyo daawo indhahayga intaas waxaa ugu jeeday waalidkayga markay maqlaan idaacadu ka maqlaan isbitaal habel ayaa nafiiqis wada isla markii ayaga waxay ka ahayd wiilkooda oo lagu helo arag u helo waxay la cararay intaas isbitaal haddana takhaatiir badan ayaa la kulmay ama lii geeyey indhahayga daawoni u qorayay marka dambe heer lidhaho markuu weynaado ha la keeno indhihiina ay sii naqdeen markasii dambaysay zam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال channelku waa channelkiini dalbile taatito ayaad naga daawanaysaan habeen wanaagsan hadday habeen ku tahay hadday maalin ku tahay maalin wanaagsan waqtigay ku tahay wanaagsan baa ku raacinayaa dadka naga daawanaya dhammaan daafaha caalamka reer Mareykan reer maxaa lahayd Soomaaliya United Kingdom dhammaan waa salaamantihiin Yurubta qaybaha kala duwan Afrika Aasiya محل جري دمان وأول السلامتين داوديال حسين محمد حسين ولكن نيجي الله حدا حواي أنك لواي أنا حاجة على إنها بين والبو حواي وحصب نيسو شيء على هاي داودي وحنك عطسنا وهريرت لايك إن سرت فيديو مرك دابني ست إن عطس واي فيديو لايك جراي كدبنا محاها تو سبسكرايب هذا كو صارن سبسكرايب ده هذا كو عصب تاع channelك حدا هرنا لو جوجتن واقع لايك ده مهم ويان نو صار ديسي فيديو نص شعبه أرنتان أكها ليا وأرن حدا بالضابط كعافع دونتو مستقبل كعروت هذا أديكو كهاجة دمان ويعافع دونتا سومالي ودن حسين وقف نوعية وحيرك أوجو إن شاء الله information يرى أنيقا نجع يقول المسترن واتقانا وحسين محمد حسين وحن أرقى بيلي أنيقو 5 سنة جرا أنيقو 5 سنة جرا عذر كاين ده يقتل عيادات بدن اسمي دينيا وحن برامج كان أضوي وحي تهدد بدن أيا إيديي إن كسوها الله أرجيجا وحى إتري هرتكو الله سبحانه وتعالى عيادتك إنها تركسكو وحى صوبة عذر لهذا جداعه وهالس تطبيق محاهي تدع نافك لكتا قارن إنها بيترتا مركا كدب عيست إن شاء الله dad bay jiifisaa oo xanuun zaid ku yimaado xilliga uu dhacay cudurkan jadeecada maxay ahayto familkii way la tacaaleen lagu mahadcelinayo hawlaasheeda maanta booskooda kala joogaan ma sha Allah aan ugu mahadcelinayo oo garabkii nabadyaasheeda ma sha Allah Ilaahay daasto garabka ayaa siiyay وإلى التعالي أنت إلى التعالي كران يا يدي ما شاء الله هذا ما الله يدافع أنت إلى التعالي كران وإلى التعالي حي سمايين عذرك مكروه دعاي وحيلا عري اسبيتال اللي عري حيسو سينيين مد والبو مركي ليجيو داو إنه إنتاس وحوو جيدي waalidkayga markay maqlaan idaacadu ka maqlaan isbitaal habel ayaa nafiiqis wada isla markii ayagu waxay ka ahayd wiilkooda oo lagu helo arag u helo waxay la cararay intaas isbitaal haddana takhaatiir badan ayaa la kulmay ama lii geeyey indhahayga daawoni u qorayay marka dambe heer lidhaho markuu weynaado ha la keeno indhihiina ay sii naqdeen markasii dambaysay زم يصير لعيفين إنما هذين
okay indhihii markay dhaceen anigu se waxaan maxay ahayd tusaalay keliga ayaa adduunka saaran arag la ayaan iska dhaadhiciyey maxaa kuu bilaabo doonto nolol nooco ayaa dareemi doontaa laakiin noloshaas aan ku guda jiray maxay ahayd indhaha aan beelay kadib waxaan watay duruustii quraanka kariimka ilaa goor aan dhameeyo maxaa dhacday kadib in dugsi ama iskuul liigiyo waxbarasho intaan liigaynin ka hor waxaan maxay ahayd islaha sidee wax ku baran kartaa iskuulkii baa liigeeyey waxbarasho ayaa ii bilaabatay maasha allah wana mahadcelinaa macallimiintii garab iga siiyey waxbarashada waxay baray maasha allah haddana waxaan dhameeyey dugsigii sare goor hore maxaa dhacday kadib dugsiga sare inaan soo kooba jeclaa marka dambeysa muhiimaddan ii siiyo dugsi sare markaan dhameeyey oo waxaan ka shaqo bilaabay dugsiga dadka aragga la wax ku bartaan ee albasiir inta aan ka shaqaynayay waxaan ka ahaa tababar ama qof macnaha oo tababar qaadanaya hamigayga laakiin hoos ayaa ku watay oo ahaa barasho inaan noqdo nin wariye ah oo dadweynaha u shaqeeyo goor hore oo ka hami jiray ha ahaatee anigoo macalinimada ahaa ayaa waxaa ii bilaabatay kadib muddadan ku jiray mushaarkii in dadkaas aan wax baro anigana khibrad aan ka sii korsado hayehe maasha allah waxaad la kulmaysaa dad cusub markaan imaanayo kale ahaa oo xitaa luqadii fartii bareylka barashada ku adkeed alxamdulillah ayagan dhib walbay u qaataan barayay saan u dareensan aniga lii dhibaatoonayay inaan u baray aniga waxaan la kulmay dad waxay barayay macallimiintii bara waxay ahaayeen macallimiin oo gaalo u badnaayeen ayaa isoo baray iyo muslim oo ku jireen laakiin intaas yaa maxay ahayd la soo kulmay laakiin ayaga waxay la kulmay macallimiin Soomaali ah iyo la kulmay dhan waa nasiib dhanna maxay ahayd tababarkii iyo agabkii ma yaala Soomaaliya badana markii noo nasiib wuxuu ku leeyahay waxbarashada Soomaaliya alxamdulillah waxaadana intaas waxaan ka sii shaqaynayay macnaha tababar ka sii qaatay mid kamid ah calaha ku yaala magaalada Muqdisho oo aan noqday nin ka howlgala xaruntaas ka shaqo bilaabay idaacad yiraahdo radio danan maxaa dhacday kadib inaan aado idaacad mid kamid ah magaalada Muqdisho ku taalo aan ka shaqo bilaabo kadib waxaa isoo wacay idaacad waxaan idaacada isoo wacaan oo aan ka shaqo bilaabo oo ayagii soo wacay marka horeysa anaa tegi jiray okay qofku markuu ku shaqaaleysiinayo waxaa la kulmaysaa caqabado kale ah inuu ku dhaho sidee wax ku baran kartaa maya wuxuu ku weydiinayaa caqabada maxay se ku shaqaysaa ma shaqeyn kartid guriga iska joog see wax ku baratay inuu ku dhaho ku weydiiyo waxaas alxamdulillah Muqdisho maxay ahayd ugu dambeyn waxaan ka shaqo bilaabay ugu dambeysaan ka shaqaynayay idaacad daryeel oo ku taala caasimadda dalka idaacaddaas aan ka shaqaynayay idaacadda ka labadaba waxaan ka ahaa wariyin waa ahaa marketing laba gacalood baan ahaa sidoo kale agaasimihii idaacadda daryeel baan ahaa intaas waxaan soo wada shaqaynayay laba idaacad dhalinyaro maasha allah waa in saaxiibtinimo wada shaqayn naga dhexaysa shaqo fiican waxaa dhalinyaro sideeda maxay ahayd meel haddii wada joogto is fahmaysaa wada shaqayn marka oo dhan walbo alxamdulillah idaacaddii aan muddada ka wada shaqaynayay oo agaasima aan ahaa waxaa ila shaqeeyey dhowr wariyaal kala duwanaa oo idaacadda ka soo shaqeeyey u shaqeeya hadda intaas way ila shaqaynayeen inkastoo marka horta agaasimo dhib waa iska dhib badan marka xilli dhaho shaqadii qofka booskiisa maqan yahay ayaa laga rabaa inaad buuxiso tusaale oo kale idaacadda waxaan ka qaban jiray sheekooyinka alfaada sheekada ama fikrada sheekada
sheekada booskaas qofka maqan inaad bixiso sheekadii hadda kale oo xalay ii soo deynaayo kale iska jirtay taasoo kale idaacadii ka bixi jirtay marka la dhaho inaad sheekadii iska dawrugtid hadduu wariye keeno fikrad sheekada magaceed haddana la sir rugtida u baahan tahay dadka oo qaybta u socota wiil isla fahantaan ama gabadh isla fahantaan maasha allah intaas muddadan kasoo shaqaynayay intaa ka hor aniga waxaan bartay Adobe Audition idaacadda reerkaan ka hor u shaqayn walaalkay ay baray Maxamed Xasan Barafle anigu mahadcelinahay Adobe Audition ka oo barbiga siiyey sidoo kale maxay tahay sidaas ay baray waxaa kaloo garab iga siiyey inuu mahadcelin mudan walaalkay maxay saaxiibkay Muri oo iminka ku sugan Hargeysa wasalaamaya maxaa la hayay Adobe waxaan u aqaana maasha Allah hore waad soo aragteen Adobe Audition ka sida loo isticmaalo oo aan isticmaalo maasha Allah cod walba aan u baahdo waa jarjartaa marka YouTube kan ana sameeyo gacanteeda ku sameystay waxaan go'aansaday horta YouTube kan markii uu aniga maadaama dalkii hooyo aan ka shaqaysay jiray haddana aan joogo dalkayga heen shaqaan haysanin camalkaygiina maxay YouTube ka dhigtay naqatay waan maxay ahayd maadaama idaacadii halkan ku ooliyay TV-yaal ina halka dadka ugu madadaaliyo hadduu YouTube kugu noqdana ka bariisay insha Allah waa halkaan rabo inakana waxaan uga baahan yahay inaad garab isiisaan waxaan u mahadcelinayaa asxaabtan maanta garabkayga siiyay oo inaka ah taageerayaal haddaad i daawan lahayn wallahi cidnay ma dalbanta markaan ii xaqiiqatan ani aragayga intaasaan ku beelay shaqooyinkaasaan soo maray dalkan Turkiga joogaa wallahi xalay beemani sheegay runta la hadlaa waxaan ku riyooday marka runta ii sheego maxaa la hayay waxaan ku riyooday anigoo indhahayga ii furmeen ayaan ku riyooday wallahi ani dhahay oo indhahayga ii furmeen ku riyooday marka waxay ahayd adiga afartii waxa la jiray 12 saac adina waxa la jiray salaad markaa wax seexday salaadii soo kac waa dugtay waan ku cishday haddana reedii baan ku sii riyooday waxa walba Ilaahay xaqiisa laga helaa haddaan helo argayga intaan min noqdo waxaan u qabanaa dalkayga waxaan u qabanaa dadkayga waxaan u qabanaa nafsadeyda insha Allah kada saan noqdana sidoo kale ayaan sameey doonaa hamigayga wuxuu yahay aniga barashada IT-dan ku hamiyaa horta haddaan wax yar ii sheego Muqdisho uma tababarno jaamacadaha ku yaal in dadka aragna xirbaraan IT-guri ani jaamacada mid kamid ah oo caasimada ku yaalan tagay waxay dhaheen shan kala ya Soomaaliya waxay dhaheen waxaan rabaa IT-na barto way qaabileen markaan muddo joogay yaa waxa dhacday laba isbuuc kala mareynaya in macallinkii uu dhaho walaalkay ku soo qaldoonta fasalka moogta fasalkan in fasalkii kulliyada IT-du waan la socdaa baan ku yiri macallinow aad see ku baranaysa IT-da meeshan waxba la bartaa IT-du aragtay semester 5 deegaarto kood ba waxba la bartaa mana kiini karsan ku barakarna anaga tababar uma haysano hay'adna ma barin hay'adna ma tababarin dowladna ma tababar waa runtii weeyaan kama han xasinimo laakiin waxa laga rabaa dowlad in dadka u tababarto jaamacadaha horta ku maasantahay dowlad imtixaan qaada laakiin waxa la rabaa in dadkan aragga la tababar inay jaamacadaha u siiyaan in dadka aragga wax la bari karo ay tidaan naqtaxoon inay macallimiin injineer u keenaan u tababaraan oo maxay tababarkaas insha Allah waa rajay doonaa in haday maqlaan mas'uuliyiin dowladda ama la gaarsiin doono taas aniga waan rabaa maxay IT-na barto insha Allah ku hamweynahay kulliyada kale aan rabo inaan barto xawaaye waa maxay hayto looyarnimo inaan qareen noqdo qareen u dooda dadka dhibaataysan markii la keeno maxkamadaha inaan noqdo lawyer oo wanaagsan waan ku dhaqmin loo maxay hayto inaan waxyaalo iska beeriyo marro waxaan xaqiiqatan inaan fuuha insha Allah IT-na waxaan horumar weyn ka sameeyo oo isgaarsiinta insha Allah horumar ka sameeyo
shaqooyin haddaad ka doonanto maanta shirkadaha waaweyn ee caasimada dalka adigoo dalka dibadda ku soo baratay wuxuu ku leeyahay ni wax ma qorga naga ta computerka naga hadlaynay waxaan lagu dhahay marka dardaaranka waxaan idhi lahaa asxaabay cudurka jadeecada iska jira wax walba ilaahay kuu keeno maxay hayto lama diidi karo laakiin dadaala cudurka markuu ugu dhaco ka hortagu wax walba uu leeyahay iska talaala waxaan lahaa doon ugu dhaco maxay hayto iska dabeeyadii kulli waaka insha Allah taqaatiirta ala raacata hadda ma sha Allah horumar baan gaar xilligaas saas meeyeen waxaan rabaa in maxay hayto inka aan iga madcali mar walba aad daabataan dibigilisaan oo videoga aad daabataan maxay hayto ma sha Allah walaalihii maanta garabisiye ee YouTube kan aygan ilaahay ha abaal siiyo walaashay Faado Brambur walaalkay CK walaalkay Hoso Bro walaalkay Shucayb Eidbad garabisiye inta ma sha Allah gaarsiye aygan insha Allah clipka isar xitaa wajah insha Allah uma hadcilna dhamaantood abaal baan ugu hayaa inkana Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal badan haani ma buuxso haddii maanta iska warramo ma tarto marka waxaan rajay doonaa in aad qaado doontaan waanada ni soo jeediyay maxay taadana waxay saacada tilmaamaysaa anaga todobadii iyo hadda ku dhacday ama hal saac ku dhacday salaad wali quraxda ma dhicin laakiin Soomaaliya habeen ka tahay xilligan anaga hadda saacada ugu dhacday todobadii habeenimo ama hal saac todobadii fiidnimo taqana Soomaha 7 p.m. Now is the time is 7 p.m. Thanks all of you. وكفر أحسنها إلى كحرنا كان يوتيوب كان إيدي رجلي عن الديار عن الرجال إن شاء الله كومنتين ولا كومنتين وافير يا مرة البو كومنتات كيسو قرلا يقولها أنا صور أنا يوتيوب كان كويستو مرة أنا توصي دونا كومنتات سيدا عندك ويتشوا مني توصيا حدي هاتا يسو قر إن شاء الله أنا توصي دونا إنك دمانتين هروق سعان الله horumar wanaagsan waxa walaalkay asana oo editing marwal editing garayo Cabdiraxmaan Faraska maasimid walaalkay mid kale waxaan iga codsanaa asxaabay YouTube kan aan hoos soo dhigay halkaas eega oo jeedin description kan ii soo dhigay commentigana maxay to waa kana halkana commentiga waan ii saaray binka ku qabtay إن شاء الله ورجي دونا إنك بوقت دونتان يوتيوب كان ورالكي ديرجلي إن شاء الله سنة هلا بوقت هلا سبسكرايب قريو محلها هلا بوقت الجنال كيسة وحصول دقا قيسوين محاها توحي على بدن وكهلا سؤال كمان يجيش يكينا هي يوتيوب إن شاء الله ومحاها تو ورالكي إنك عابي وما أنت فيديوهات قروح بدن أدو جيدان إنك سوي دي تنقري ويان وحكسو بيها عاصمة دي ضلك مقدشو hadda ka hor wuxuu yiri walaalkay Harun Ismaan Sibriye ku sugan dalka Mareykanka wuxuu dhahay dalbile videoga Muqdisho lagu soo editing gareeyaa oo dhahay Mareykankana lagu sheeg gareeyaa oo dhahay asasoo sheeg gareeyo soo hubiyo waa maxay tahay salaamaya waxa wiilkaas ma sha Allah TikTok leeyahay وهكا أصحابي وما سنتين دمانتين وحن الله هرو صعد وناكسن هلا بغض يوتيوب كاس عنينا هاي يسودي رجلي شالواتكم ما سنتين دابشة فيديو غان وحن يريد تجي سلاسي أمان الله